labadan mas'uul ee wasaaradda maaliyadda iyo xanaanada xoolaha Soomaaliland oo kormeerkan ay ku wehelinayaan wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo agaasimaha guud ee duulista iyo hawada Soomaaliland ayaa waxa dhismahana warbixin ka siiyay mid ka mid ah mas'uuliyiinta ururka Haldoor waxaana xukuumadda uga mahad celiyay dadaalka ay ka geysatay dhismaha dugsigan kaasi oo sheegay in ay ka rajeynayaan xukuumadda Soomaaliland dhamaystirka dugsigan dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa sheegay in horumarka dugsigan aanu u baahnayn cid carqaladaysa isla markaana warar been abuura ka faafisa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ka warramay maraaxilkii dugsigan soo maray ayaa sheegay tan iyo waqtigii seeska laga bilaabay in ay xukuumadda Soomaaliland ka qayb qaadanaysay walina ay diyaar u tahay dhamaystirka dugsigan isla markaana aanay jirin wax ay ka hagranaso cid ay ka hor istaagtay dhamaystirkiisana aanay jirin dhinaca kalena wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwe Samsam Cabdi Aadan oo halkaasi ka hadashay ayaa dhalinyarada hawsha dugsigan wada uga mahad celisay taasi oo ka warrantay muhiimadda dugsigan xirfadaha gacanta u leeyahay bulshada Soomaaliland iyo baahida loo qabo ayaa ballan qaaday in xukuumadahan ay dhamaystirkiisa ku dadaali doonaan iskuulkan dhismihiisa markii dhulka loo baadi doonayay ilaa maanta oo uu litirka marayo waxaynu la soo marnay marxalado badan iskuulka dhismihiisa inta wanaagga jecel oo dhammi way ku faraxsanayd laakiin qaar baa xumaanta iyo naxliga ay u dhasheen dartii waa kuwa guryahooda marka laga dhisayo xanaanooyinka dumiya waa kuwa xanaanadii ay dumiyeen farmasiyadooda lagu iibiyo dawadii ay MCH-ka ay dadku boobeen runtii waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay iskuulkan oo ay ka muuqato dhalinyarada ku fakartay ee lacagta inta la gelisay ee meesha quruxda badan ka sameysay runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo wax wadankeena u soo kordhay oo waxyaabaha aynu u baahanay iskuulada yaryar private-ka ah kan baa ka qiimo badan kun jeer laakiinse iskuulkan qiimo gaar ah buu leeyahay runtii waxaan diin ballan qaadayaa halkan doonaan ka soo saaro budgetka hadaan Haldoor aan magacu ku qornay laakiinse in iskuulkaas u dhamaystirmo wasaaradda maaliyadda dhamaystirto